السلام يا بسم الله الرحمن الرحيم وحنا نروي أخريا وربطيتي كسب بحي صدق لي بري هل كان ضد كسعتي شروينا هو تشجع بنتلان شاني تمنكي يطلبي تمنكي بيش كسعودي مجال الجرو وربطيتي أقام أيام دين أخريا شروينا هو تشجع بنتلان وربطيت كشركة تطبيق تمنك بيش مارسو لبكون يلا بعتنك شروينا هو تشجع بنتلان لجوج أمي شركة كلها حكومة بنتلان كدعي حرونتا مدحتويدا بوساسو تضودي بيشي فبراير 2022 ayaa si rasmi ah uga furmay qolka shirarka ee jaamacadda Puntland State University Garowe 15 bishii Maarso 2020 soo xirmay 17 bishii Maarso oo ah maanta shirweynaha waxa isugu yimi ergo iyo goobjoogayaal kor u dhaafay 1800 oo qof oo isugu jira golayaasha dawladda Puntland wakiilada Puntland ku metela dawladda federaalka ismada Puntland ra'iisul wasaarayaashii hore ee dawladda federaalka madaxweynayaashii hore ee Puntland gudoomiyaashii hore ee golaha wakiilada Puntland siyaasiyiin cuqaal nabadoono wakiilo ka socda ururada bulshada ee haweenka dhalinyarada ganacsatada aqoonleyda culimada iyo qurba joogta reer Puntland ujeedka shirka wuxuu ahaa sidii qaybaha kala duwan ee dawladda iyo shacabka ee bulshooyinka reer Puntland u qiimeyn lahaayeen marxaladihii la soo maray 22 sano iyo dheeraadkii la soo dhaafay iyadoo sidoo kalena jihayn lagu sameyn lahaa mustaqbalka aayaha Puntland gudaha iyo dibadba iyadoo dib loo milicsanayo himilooyinkii loo asaasay Puntland muddadii uu shirku socday waxa lagu lafaguray mowduucyo kala duwan oo isugu jira guulaha la gaaray iyo caqabadaha ka jira Puntland federaaleynta dalka iyo xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka khudbado iyo dood kooxeedyo socday muddada 3 bari ah shirweynuhu wuxuu soo saaray qodobada soo socda go'aamadii shirka qodobka koowaad midnimada siyaasadda iyo maamul wanaagga ayuu quseeyaa shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyadoo loo marayo nidaamka federaaliga ee lagu heshiiyay shirweynuhu wuxuu si gooni ah ugu mahadcelinayaa hoggaanka dhaqanka Puntland doorkii shariifka ahaa ee ay ka qaateen asaaskii dawladnimada Puntland iyo kaalinta ay ku leeyihiin midnimada iyo wadajirka bulshada shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa horumarka baaxadda leh ee Puntland ku tallaabsatay muddadii ay dhisnayd horumarkaas oo ay ka mid yihiin dhismaha hay'adaha dawliga ah bixinta adeegyada bulshada dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo kaalintii hormuudnimo ee Puntland ka qaadatay dhismaha iyo taabagelinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inay Puntland ku asaasantay 5 gobol ee kala ah Bari Sanaag Nugaal Sool iyo Waqooyiga Mudug iyo degmada Buuhoodle midnimadaas iyo wadajirkaasuna yahay dastuuri lama taabtaana sida ku cad dastuurka Puntland dawladda Puntland iyo dadkeedaba waxa waajib ku ah xaqiijinta iyo ilaalinta midnimadaas dhuleed iyo dadeed shirweynuhu wuxuu sidoo kale ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay ku wada noolaadaan nabadgelyo isqadarin iskaashi iyo wada noolaansho shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dawladda Puntland in la qabto shir looga hadlayo dhulka maqan ee Puntland lana sameeyo guddi gaar ah oo dabagala hawlahaas shirweynuhu wuxuu aqoonsaday in laga daahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyiinta Puntland wuxuu garowsaday in nidaamka xisbiyada badan ay qayb muhiim ah ka tahay xalowhelida tabashooyinka ka jira matalaadda siyaasadeed shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa dawladda Puntland ee xilligan inay goor hore bilowday geedi socodka nidaamka dimuqraadiyiinta wuxuuna ku boorinayaa dhamaystirka geedi socodkaas muddaxileedka dawladdan shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa xukuumaddu inay abuurto jawi iyo saaxad siyaasadeed oo si siman loogu tartami karo lana siiyo daahfurnaan iyo madax bannaani saxaafadda ahna leh shirweynuhu wuxuu kaloo ku dhiirigelinayaa xoogaga siyaasiga ah waxyaabo siyaasadeed bulshada rayidka ah culimada haweenka dhalinyarada iyo dadweynaha Puntland inay si aan kala har lahayn uga qayb galaan hirgelinta hanaanka dimuqraadiyiinta dalka isla markaana shirweynuhu wuxuu beesha caalamka ka codsanayaa inay ku biiriyaan taageero farsamo iyo mid dhaqaale labadaba barnaamijkaas
shirweynuhu wuxuu ku bogaadinayaa xukuumadda Puntland ambaqaadka maamul wanaagga gaar ahaan dhinacyada dib u habaynta hay'adaha amniga shaqaalaha rayidka ah nidaamka maaraynta maaliyadda shirweynuhu wuxuu kaloo dowladda Puntland ku boorinayaa in la dardar geliyo lana xoojiyo tayeynta madax bannaanida iyo dhamaystirka hay'adaha garsoorka si loo helo cadaalad bulsho oo waafi ah sidoo kale shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda Puntland inay asaasto maxkamadda dastuuriga qodobka labaad amniga shirweynuhu wuxuu aqoonsaday in argagixisadu tahay masiibo qaran iyo mid caalami ah Puntlandna shacab iyo dowladba ay mar walba dagaal kula jiraan ciribtirka argagixisada waxaa xusid mudan iyo bogaadinba mudan howlgalladii la dagaalanka argagixisada ee sida wadajirka ah loola galay kooxda al-shabaab ee soo weerartay deegaanada Garaacad Suuj iyo Garmaan sanadkii 2016 iyo la dagaalankii Daacish ee buraha Qandara wuxuu shirweynuhu ku boorinayaa inay Soomaalidu iska kaashato beesha caalamkuna ay gacan buuxda ka siiso xukuumadda Puntland sidii cadawgaas al-shabaab iyo Daacish loo ciribtiri lahaa loogana sifayn lahaa silsiladda buulaleyda Golis iyo guud ahaanba Soomaaliya shirweynuhu wuxuu soo jeedinayaa dowladda inay xakamayso hubka sharci darrada ah ee gacanta shacabka ku jira cidda kaliya ee haysan karta hub waa ciidamada amniga iyo ciddii kale oo sifo sharci ah loogu ogolaado shirweynuhu wuxuu soo jeedinayaa dowladda Puntland inay tallaabo degdeg ah ka qaado maandiyaasha iyo daroogooyinka dhibaatada amni iyo dhaqan ku haya iyagana bulshada qodobka saddexaad horumarka iyo adeegga bulshada shirweynuhu wuxuu garowsaday in heerka dhaqaalaha Puntland aanu dabooli karin baahiyaha shaqo horumarin dakhli iyo adeegga bulshadeed sida awgeed waxaa dowladda Puntland lagu boorinayaa inay dejiso istiraatiijiyad koboc dhaqaale oo hadafkeedu yahay yaraynta saboolnimada iyo abuurista fursado shaqo istiraatiijiyadaas waa inay diiradda saartaa ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah gaar ahaan khayraadka badda dhiirigelinta maalgashiga iyo ku jahaynta bulshada dhanka wax soo saarka waxaana loogu baaqayaa in la dardar geliyo dhamaystirka mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee muddada dheer soo jiitamayay sida ballaarinta iyo casriyeynta dekedda Boosaaso dhismaha wadada Ceeldaahir Ceerigaabo dhismaha dekedda Garaacad hirgelinta kastamka Tuurdibi iyo dayactirka wadada dheer ee Boosaaso Gaalkacyo iyo Garowe Laascaano Ayl Garowe sidoo kale waxaa shirweynuhu ku baaqayaa in la bilaabo dhismaha wadada Guumeys Boohoodle wadada Kalabayr Caruura wadada Garowe Taleex Boocame iyo Fadeeryaale Boosaaso Qandara iyo wadada Garaacad Galdogo shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda Puntland ugu baaqayaa inay si degdeg ah ula timaado qorshe cad oo looga hortagayo cudurrada faafa gaar ahaan cudurka hadda taagan oo dunida ku fidaya ee COVID-19 qodobka afraad xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland shirweynuhu wuxuu qirayaa in dowladda Puntland ay si mug leh uga soo baxday kaalintii kaga aadanayd dhismaha iyo taabagelinta dowladda federaalka ah taas oo ah hadaf ka mid ah ahdaaftii Puntland loo asaasay 1998 arrimaha dastuurka maadaama hanaankii dib u eegista dastuurka la baalmaray maadaama si ulakac ah looga tegay xubnihii xubnaha ka ah dowladda federaalka ah uga qaybgeli lahaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo maadaama uusan harin waqti si waafi ah looga fara buuxsan karo lana fulin karo arrimaha asaaska u ah dastuurka sida iswaafajinta dastuurada iyo aftida dadweynaha shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa kuna adkaynayaa dowladda Puntland in dib u eegista dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dib loo dhigo ilaa iyo muddo-xileedka dowladda imanaysa kadib doorashada 2020 si loogu helo waqti waafi ah iyo wadatashi buuxa arrimaha doorashooyinka shirweynuhu wuxuu dood dheer ka yeeshay doorashooyinka
kun labaatan laba kun koob iyo labaatan iyo sida looga gudbi karo xilliga kala guurka ah sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna saxiixay dhammaadka xileedkii dowladnimo ayaa leh caqabado asaasi ah oo aan la aqbali karin una cuntami karin mustaqbalka dadka Soomaaliyeed caqabadahaas waxaa ka mid ah wuxuu sharcigu isku dhafayaa nidaamka deegaan doorashada iyo xisbiyada badan oo dastuuri ah iyo nidaamka awood qaybsiga beeleed ee 4.5 loo yaqaan oo ka hor imanaya dastuurka dalka u degan sharcigu wuxuu dastuuri ka dhigayaa hanaanka awood qaybsiga beelaha oo ay ahayd in laga gudbo oo aan marna noqon karin sharciga dalka sharcigu ma abuurayo nidaam doorasho siman oo xildhibaanadu ku soo baxaan maadaama sharciga la ansixiyay dhammaadkii mudooxileedka dawladda dalkuna uusan dhammaan ku wada jirin gacanta dawladda waxa adag in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah isla mar ahaantaana shirweynuhu wuxuu go'aansaday inaan la aqbali karin in wax muddo kordhin ah loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah qodobka shanaad haddaba shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan shir wada tashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada 2021 waxaana shirweynuhu soo jeediyay in dowladda Puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna fidiso gobol Soomaaliyeed oo loo dhanyahay gaar ahaan wuxuu shirweynuhu walwal ka muujiyay faragelinta qaawan ee lagu hayo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo nidaamyadooda gudaha arrintaas oo ka soo horjeeda dastuurka ku-meelgaarka ah ee dalka faragelinta ciidamadeed ee keentay dhimashada dhaawaca iyo barakaca bulsho ee ka dhacday doorashadii koonfur galbeed ee Baydhabo doorashadii galmudug ee Dhuusamareeb iyo colaadda gobolka Gedo ee hadda taagan ku-tagrifalka awoodda dowladda sida caburinta xoogaga siyaasiyiinta ah ee ka aragtida duwan xukuumadda cunaqabataynta socdaalka hawada iyo xayiraadda waxbarashada ubadka Soomaaliyeed ansixinta sharciyo aan ku dhisnayn wada tashi iyo wada shaqayn dastuuri ah sida sharciga batroolka midka doorashada sharciga hawada iyo sharciga isgaarsiinta arrimahan oo dhan waxa ay baalmarsan yihiin qodobada dastuuriga ah ee 53aad 54aad 120aad iyo 142aad ee dastuurka ku-meelgaarka ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobka 7 shirweynuhu markuu arkay in la baalmaray heshiiskii dhisidda siyaasadda amniga dalka ee tibaaxayay tababarka qalabaynta iyo hoggaanka ciidanka ee la saxiixay ka hor shirkii London 2017 wuxuu shirweynuhu walaac ka muujiyay in ay dowladdu dhisayso ciidan dhinac u raran oo aan isku dheelitirnayn khatarna ku noqon kara amniga xasiloonida iyo wadashaqada dalka shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda Puntland inay xisaabtan dhaba kala gasho dowladda federaalka iyo dowladaha gacanta ku
quseeya dowladda federaalka ah dhisidda ciidanka qaranka Soomaaliyeed labada qodobka sideedaad shirweynuhu wuxuu warwar weyn ka muujiyay siyaasadaynta deeqaha ee dowladda federaalka ay ku hayso deeqaha caalamiga ah ee loogu talagalay arrimaha bini'aadanimada horumarka iyo adeega arrimaha bulshada arrintan oo keeni karta sii jiitan colaadda iyo kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu ku adkaysanaya dowladda Puntland inay dowladda federaalka iyo beesha caalamka kala xisaabtanto hubinta in deeqaha caalamiga ahi aysan dib u keenin xasiloonida iyo deegaanaanta dalka Soomaaliya qodobka sagaalaad shirweynuhu wuxuu dood iyo falanqayn dheer ka sameeyey qaabka wadahadalka dowladda federaalka iyo Somaliland iyo saamaynta ay arrintaasi ku leedahay dowladda Puntland shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inaan cid kale go'aan ka gaari karin dad iyo dhul ka tirsan Puntland sida waafaqsan dastuurka ku-meel gaarka ah ee federaalka Soomaaliya waxaana shirweynuhu ku nuuxnuuxsaday in dalku leeyahay nidaam federaali ah oo ku salaysan dowlad goboleedyo xubin ka ah dowladda federaalka ah wax kasta oo ka baxsan hanaankaas lagu heshiiyey wuxuu khilaafayaa dastuurka ku-meel gaarka ah ee Soomaaliya dowladda Puntlandna waa inay ka yeelataa wadatashi kana qaadataa go'aanada ku habboon ee dastuurka Puntland uu ogol yahay qodobka tobnaad haddii ay dowladda federaalku sii wado hareermarista dastuurka dalka iyo burburinta hanaankii lagu heshiiyey ee federaaleynta dalka shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu dowladda Puntland ugu baaqayaa ay qaadato